أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكلمة ملك السودانية دعالة كجوكتان ملك استيل حلك استيل انتهي ومركا لي برنامج شدينا تكلاسو عشان ايرو تي في برنامج كامانتا اينو دونينا بلشدة لو داغنا وبرنامج غارة او اينو مقعدرناي وامحي مركلا iyo midnimo barnaamijka waa maxay markale iyo midnimo waxa maanta inoogu martiya mudane qora sare maxamed baashe sheekh xasan oo inta badan ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda geeska Afrika maxamed baashe waa nin inta badan hal abuurkiisu ay Soomaalidu meelo badan uu ku gaaray aqal walbana uu meel walba udub Soomaalidu ka taagan yahayna uu jiiray mudane maxamed baashe waxaan kugu soo dhaweynayaa Airo TV marka koowaad aad baad u mahadsan tahay Faisal Afrone adiga iyo inta kale ina dhageysaneysana waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad maasatahay waan ku soo dhaweynayaa daawadayaashana kulay waxaan jeclahay inay ka gudoomiyaan salaanta qiimaha leh mudane waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo dhowr su'aalood oo run ahaantii ay bulshada maskaxdooda iyo maankooda yani dhex jibaaxayso dad badan ay u jeelayeen inay wax ka ogaadaan arrimahan waxay yihiin dhowr qodob ayaan u qaadi doonaa oo mid walba farac siile faraca koowaad ama qayb ama qodobka koowaad waxa weeyaan saan la socono 30 sano ayay Somaliland ku dhawaad ay cagacageynaysaa inta ay nidaam iyo kala dambeyn iyo hufnaan ay haysato waa maxay maanta in 30 sano ku dhawaad ama 30 gu in mar kale aad u buudaan midnimo ama aad raadisaan midnimo Soomaaliyeed ku soo dhawow Faisalow maydan fooda inagu soo haysaa bishan ay ku jiro ka dambaysaa ayay Somaliland 29 jirsanaysaa shaki kuma jiro in Somaliland ay wax badan u qabsoomeen oo muddada 29 sanadooda marka la barbar dhigo dhigooda kale ee Soomaaliya ay walaalaha yihiin midnimaduna ka dhaxaysay wax badan oo wali ka dhaxeeyaan waxa Somaliland la oran karaa waxa ay ku naalootay nabadgeliyo iyo kala dambeyn iyo nolol horumar beegsi ah oo taashaki kuma jiro halka dhinaca kale ee Soomaaliya ay dagaalo dabeecado kala duwan yihiin oo sokeeyay ka socdeen dawlad la'aan iyo kala dambeyn la'aan fara badan ay ku sii baahday wadanka oo markaa ay dhibaato weyn u keentay haddaba 29 sanadood kadib su'aasha weyn jawaabta u baahnay waxa weeyaan maxaa keenay dhawaqan waana mid aad u macquula in dadku isweydiiyaan annagu waxa aanu ka duulay oo aragtidan keenay waxaanu qiimaynay xaaladda maanta iyo 20 sanadood u dambeeyay ay Somaliland ku sugnayd marka laga tago waxyaabaha la yaabirtay ee amniga ah ee haykalka dawladeed hoosta ka marana ee kala dambeynta ah waxaa noo soo baxday in dhinaca Somaliland horumarka socday uu hoos u sii socdo iminka oo dawladnimada Somaliland ay sii saqiirayso oo sagxadda sii qaniinayso taa cakiskeedana dhinaca kale ee Soomaaliya na ay dawladnimada iyo hay'adaheedu ay hadda boorka ka soo kacayaan oo ay kor u socdaan labada isire isweydaaranaya waxa ku jira marka lagu daro la barbar dhigo isbedelada waaweyn ee gobolka geeska Afrika ka jira in loo baahan yahay in dib loo eego arrimahaas oo la qiimeeyo ta keenaysa waxa weeye waxa aanu daraasaynay muddo sanad ka badan daraasaynay maxaa daran mashaakilaadka jira maxay yihiin dadna waxa nooga soo baxday maxaa danahdi waxa ay noo geysay inaan laga maari mahayn maanta in dib loo eego Somaliland iyo halkay ku socoto iyo halkay ka timi iyo 10 sano ee soo socda haddii xaaladdu sidan sii ahaato sawirka ka soo bixi kara iyo sida ay u ekaanayso marka waxa danta Somaliland nooga dhex muuqatay midnimo oo aanu aaminsanahay in lagu helayo fursadaha waaweyn ee dhaqaale oo ay ku jiraan fursadaha waaweyn ee siyaasadeed fursadaha waaweyn ee difaaceed marka la eego xaaladda gobolka geeska Afrika iyo isbedelada ka socota iyo sida Soomaalidu ay markaa u yaaliin waa hagaag isla su'aashaasi su'aal kale oo ku laran ama daba socota waxa weeyaan maxamed baashe ahaan
waxaad ka tirsaneyd kaadirinta waaweyn ee xisbiga talada haya ee kulmiye waxaa kaloo aad ka tirsaneyd nidaamkii snm waxaad meelo badan kaga baantay ama aad meelo badan kaga hadashay somalilan jiritaankeeda inay muqadas tahay oo aanan geed yacni wax aanan laga noqon karin ay tahay maxaa deyrkii muqadasnimada maanta jebiyey kusoo dhawow faysalow xayaatadayda intii aan noolaa afkayga lagama maqal qoraal aan qorayna laguma arag meelaan ku leeyahay jiritaanka somalilan waa muqadas jiritaanka somalilan waxaan u haystay anigu wax dadka halkaa degani ay isla garteen oo ay kaga badbaadayeen maxay ahayd tooy hadiimooyinkii iyo dowlad la-aantii iyo madaxyamijo la-aantii iyo qaranjabkii soomaalida ku dhacay oo ay iyagu intay isu yimaadeen waxay isla garteen oo markaa ay danahooda iyo waayahooda kaga tashanayeen laakiin mar walba somalilan inaanay ahayn wax lama taabtaana anigu waan aaminsanaa cindigaygana way ku jirtay haddii raadkayga dib loogu noqdo taariikheedna waa la soo helayaa oo 1991 markii lagu dhawaaqay gooni isutaagga waxaa lagu dhawaaqay maalin sabtiya 18 May aniguna 24 May oo ahayd jimce waxaan arrintaa kaga hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da barnaamijkii ka baxay ee loo yaqaanay ama ka bixi jiray loo yaqaanay maxay kula tahay waxaan ku saluugsanaa oo aan kaga horjeeday gooni isutaagga oo aan u arkayay in SNM ay markaa ka baxday ballantii iyo ahdigii ay ku shaqaynaysay ee dastuurka ahaa oo ay jabisay isla mar ahaantaana waayo kuma salaysnayn dastuurkaasi in dalka la kala gooyo wuxuu ku salaysnaa in taliska maxamed siyaad barre la rido lana ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed taasoo SNM ka baxday ayaan ka dhigayay qodobka ugu weyn kalamadna waxaan ka dhigayay haddii reer waqooyigu ay ka cabanayeen muqdisho iyo israaci 1960 markay maanta gooni u go'aan yaa damaano qaadaya dulmiga iyo cadaalad darrada iyo waxaa laga cabanayay wax u eg ama ka liitaa inay ka dhacaan Hargeysa iyo Burco Boorame iyo meelaha kale la midka ee waddanka taasi waa ta labaad waa dhab xisbiga kulmiye waxaan galay bishii Oktoobar 19keedii 2015 markii Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiye dhexdiisa uu kula loolamayay Soomaale iyo Yoonis markaas ayaan anigu kulmiye taageeray oo aan la saftay Muuse Biixi Cabdi si uu xisbiga uga soo dhex baxo oo gudoomiyey musharax u noqdo aniga oo markaas sababa aan anigu ku qanacsanaa isku qancinaya oo waxaan qoray maqaal berigaasi hooyo la oran jiray dhanbaan hayoo dhexdhexaad ma noqon karo wixii kulmiye dhexdiisa ka socday dhexdhexaadka ma noqon karo muusaan ku taageeray muuse markii uu soo baxayna waddankan tegey muuse waa la shaqeeyey dadkii manifestada wax ka qoray baan ahaa markii muuse ka hore dadka Somaliland la shaqeeya ee dowladnimadeeda iyo nabadeeda iyo wanaageeda iyo horukaceeda ka shaqeeya baan ahaa khasabna way igu ahayd oo marka dayaxa la waayo xidigaha lagu gudaa oo dadkii halkaa Somaliland isugu yimi wax wada dhisanayay qof kastoo kamid yahay inuu taageero oo dhinaca u taageerabay xaq loogu lahaa oo waajib markiisa ahaa oo maqaamkiisa lahaa oo lagama maarmaan ahaa marka anigu uma arko in ay maanta wax laygu eedayn karo ay noqon karto in la yidhaahdo waxaad la soo shaqaysay Somaliland waxaad ka mid ahayd Somaliland waxaad dowladihii ka jiray wax ka dhistay tan muuse u dambeysay wax ka dhistay inta waxaan u arkaa inay wada ahaayeen waajib laygu leeyahay maantada lafteedana nin Somaliland tuuray oo ka tegey ma ihiye Somaliland danteeda iyo wadajirkeeda iyo wanaageeda iyo qurxinteeda ayaan u taaganahay oo aan meel walba isla soo taagayaa haddii aan tago Xamar haddii aan tago Addis Ababa haddii aan tago Djibouti haddii aan tago Wajeer haddii aan tago Jigjiga haddii aan joogo London waxaan u taaganahay samaha iyo wadajirka iyo danaha madhaafaanka ah ee Somaliland oo aan anigu u hanweynahay oo anigu ka dhex arko danaheeda iyo fursadaheeduba inay ku jiraan mar kale oo la soo fadhiisto oo si dhab loo wada hadlo oo waqooyi iyo koonfur u wada hadlaan oo markaa ay markay heshiiyaan samaystaan
wax ay wada leeyihiin oo dowladnimo haybad iyo milga yeelan kara waa hagaag qodobkeena koowaad waxaan kusoo gunaanadayaa laba su-aalood oo isku makaan ah oo isbarkan mida waxay leedahay ummadda Soomaaliyeed waxay maanta xoogoogu noqdeen xildoon iyo xoolodoon su-aasha kale taa ku larana waxa weeye waxaa lidinku xamanayaa haddaad tihiin mar kale iyo midnimo in qasnadihii waaweynaaye magaalada Muqdisho leediin ballaqay maxaad kaga jawaabaysaa labadaas arrimood su-aashan dambe haddii aan ku horeeyo qasnadihii Muqdisho leediin ballaqay horta xan maahe waa war suuqa yaallo oo social mediaha iyo xitaa rag madaxa oo xidhal hayaa waxyaalaha way ku hadhaaqayaan annagu Muqdishona maanaan tegin haddii ay bahay idmayo una soconno oo rag xil ka doonaya ma nihin waayo haddii aanu xil doonno oo maanta nalaga dhigo wasiiro iyo la taliyayaal iyo wasiiro ku-xigeenno iyo haddii ay bahay mayakan iyo keer oo dowladda federaalka aanu ka mid noqonno waxaa dhimanaya hawshan aanu gacanta ku hayno ee sharafta iyo milgaha leh mar kale midnimo iyo aragtida aanu abuuraynaa way dhimanayaan oo annaga waxaa naga horreeya oo dee aanu ognaho xamar jooga rag badan oo naga aqoon badan oo naga waayo aragsan oo naga da'weyn oo Somaliland ka soo jeeda oo qaarkoodna intay haddaba joogaan oo xilal waaweyn hayaan qaarkoodna intay ka soo noqdeen hargeysa yimaadeen marka taasi macno weyn ma samaynayso marka la eego waxa aanu doonaynay aragti abuurka iyo fikir dhalinta mar kale midnimo oo aanu doonayno oo aanu u aragno inaanay macno badan samayn haddii labada siyaasi ama ragga qolada siyaasadda ku foogani ay iyagu midnimada isla gartaan macno badan ma yeelanayso haddii aan quluubta dadka marka hore la midayn oo aan laysu soo dhoweyn marka aragtida weyne cadiimka ah baanu wadnaayo Soomaali waxtarka u yeelan karta mustaqbalka dhow iyo ka fogba talabaad ee xilka iyo maalka iyo magaca run ahaantii dadka had iyo gooraale waxaa raadiya maskab raadiya maal raadiya haddii abay magac intuba hore ayay u dhintaan aragtidoodu marka ay lacagta helaan marka ay kursiga helaan marka ay magacooda la barto waxaa haddii aan wax kale uga hoosayn waxaa dhimanaya maxay tahay aragtidoodii laakiin dadka mabaadi'da waxaan u aaminsan ee mabda'iyanka u wada had iyo gooraale fikirkoodu ma dhinto hadday xitaa iyagu wadka ilaahay haleelo oo ay dhintaan fikirkooda iyo mabaadi'dooda waxaa sii wada inta kolba markaa nool oo ku sima dacda kale annagu waxaanu ka xarimanahay oo naga fog oo aanu halis u aragnaa inaanu maal doonno inaanu magac doonno inaanu maskab doonno maalka waxaa looga baahdaa gaari kasta oo dhaqaaqa wuxuu u baahdaa shidaad uu taayirka ku rogo si halka uu doonayo uu u gaadho mar kale midnimo way u baahan doontaa dhaqaalahaasina waanu u meeldayaynaa oo wuxuu noqon doonaa midaan naga duwi karin naga marin habaabin karin dariiqa aanu ku soconno iyo waxa aanu doonayno waxaana lagu bartoona lagu yaqaanaa ilaan maanta maanaan dhalane iyo ka waaweyn baanu nahay inaanaan cad qureed qaadan inaanaan maxay ahayto caadaqaatayaal ahayn inaanaan xaaraan quutayaal ahayn inaanaan kan iyo keer iyo dad aan waxba isku faranahayn wax walba ma geyno calooshayadu ma qaado saasaanu nahay xaaraan baanu ka caaganahay magaxu baanu ka caaganahay laakiin yaan khalad laga fahmin dhaqaale ama ha laga helo hay-adaha maxalliga ama ha laga helo kuwa gobolka ama ha laga helo kuwa maxay ahayto qaaradda ama ha laga helo xukuumadaha iyo dowladaha dareeya isu soo dhaweynta wada hadallada iyo maxay ahayto dib u midaynta Soomaalida ama ha laga helo kuwa hay-adaha waaweyn ee jimciyadda qaramada midoobay ee arrimahan daneeya dhaqaale markaanu isdhisno ee aanu wax jira noqonno ee aanu munadam noqonno aanu yeeranno maxay ahayto qaab dhismeed la fahmi karo oo daah furan oo lala xisaabtami karo oo sharciyad ku fadhiya waanu raadsan doonaa kharash haddii alla idmo iyo maal oo lagama maarmo hawsha waxay u baahan tahay waan raadinaynaa taana xaq baan u leenahay ceebna naguma aha cidina naguma dhaliili karto waa hagaag mudane waan kasii gudbayaa qodobka koowaad waxaan u gudbayaa qodob kale oo isaga laftiisa u baahan in la
qodax qaado ama si fiican loo hufo waxaa jira beela loo bixiyey beelaha darafyada gobolada yani waqooyi ama somaliland waxaa loo kala saaray beesha dhexe iyo beelaha darafyada muddo ku siman 30 sano ayay waxay ka cabanayeen cadaalad darro sinaan xumo wax wada qaybsi la'aan darkii siyaasadda oo laga dhabandhaabayo ama darkii siyaasadda oo loo diidan yahay inay si hufan oo wanaagsan oo isku mid ah in loo soo wada fariisto adigu maadaama aad sheegtay aad ka tirsaneed xisbiga kulmiye waxaad wax weyn ka og tahay hanaankii iyo haykalkii nidaam ee somaliland lagu dhaqayay beelaha cabashada tabanaya maxaa idinkaga qorshaysan xisbiga ama nidaamka midnimo mar kale iyo midnimo haddaad tihiin horta walaal somaliland la wada leeyahay oo si cadaalada u shaqaysaa waa waxyaabaha qabyada caabay ka mid ahay waynu ognahay oo somaliland nidaamka dimuqraadiga baa ka dhaqan galay madaxweyne daahir riyaale kaahin waxa uu oo darafyada kasoo jeedaa waxa uu noqday madaxweyne doorasho kusoo baxay ee aan kusoo bixin maxay ahayd toy si kale doorasho caama oo qof kastaaba foodkiisa dhiibtay oo loo dareeray oo dadka intiisa badan ay food gobolada oo dhan gobol kasta laga codbixin laga sameeyey buu daahir riyaale kaahin kusoo baxay oo xukunka ku hayay muddo dheer oo 10 sano ku dhow 7 sano oo 7 sano ku dhowaad horta wanaag noocaasi somaliland wuu ka jiraa oo qurux badan oo mararka qaarkood haddii si wacan oo casriyaysan looga shaqeeyo macno badan samayn lahaa laakiin macal asif dareenkaasi mar walba wuu jiray maba ahoo qura maxay ahayd toy wax cabasho ku saabsan saamay qaybsiya waxaa jira dareen ku saabsan in gooni-sutaagga somaliland ba aanay beelaha darafyadu in badan oo ka mid ihi marraba ku qancin magaalada buuhoodle oo degmo ka mida gobolka togdheer waxay u jirtaa burco wax ka yar 200 kilomitir ilaa maanta somaliland may gaadhin lagama aqoonsana somaliland dadka halkaa jooga laguma qancin waa dhaliilaha waaweyn ee somaliland leedahay ee keenay in somalilandnimadii la wada yeelan waayo la wada dareemi waayo la isku daawan waayo la wada difaacan waayo lagu soo wada hiran waayo waa ka mid iskabadaa beeraha darafyada xilligan iminka la joogo waxaa tabashooyin dhex yaalaan beesha dhexe lafteeda oo ku kala sad bursatay maxay ahaytoy awood qaybsigii iyo hanaankii dowladnimo waa hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijkeena maanta ayaynu ku jirnaa noogu magac darnay waa maxay mar kale iyo midnimo uu marti inoogu yahay qoraaga weyn ee soomaaliyeed maxamed baashe sheekh xasan mudane waxaa kaloon doonayna wax kaa weydiiyey isla su-aal qodobka labaad ah nidaamyo ayaa ka curtay markii cadaalad darro baahsan ay ka dhalatay somaliland iyo wax wada lahaanshihii nidaamyadaas waxaa ka mid ahaa awdal state khaatume state iyo maaqir state awdal iyo khaatume iyo maaqir waxay geed gaaban iyo geed hooseba u fuuleen in ay raadiyaan midnimadii iyo wadajirkii iyo walaalnimadii soomaaliyeed waa laga hoos qaadi waayey idinku maxaad kaga duwan tihiin dadkaasi soomaaliyeed ee 30 sano qayliyayey ee cadaalad darro ka cararayey ee wixii ay dhiseen iyaga gacmahooda ku dhiseen laga yuureeyey maxaad kaga duwan tihiin idinku waxaanu kaga duwannahay run ahaantii annagu iyagu qolyahaas maakhi state iyo haddii ay bahayidma iyo awdal state iyo waxay raadinayeen midnimo soomaaliyeed annaga laftayadu midnimo soomaaliyeed way nagu qaadsaneedo waa raadinaynay laakiin waktigeedii baanan arkayn waktigeedii munaasibka ahaa baanan arkayn waxaanu kaga duwannahay momentumka xilliga ay iyagu ku dhawaaqayaan waxaanu doonaynaa midnimo soomaaliyeed run ahaantii inta badan somaliland gudaheedana oo anigu haddaan idhaahdo gobolka aan kasoo jeedaan midnimo soomaaliyeed oo qura aan isku koobaya ku raadinaya waxa weeyaan way adkaan doontaa wax adag bay noqonaysaa laakiin marka aan anagu leenahay somaliland oo iswadata oo reer waqooyiya oo inta ay waxbaa dhex yaal oo iyaga qudhooda kalsooni darha lagu dhex abuuray inta aad laysu keeno oo la wada arrinsado oo reer waqooyinimo lagu wada arrinsado oo wixii dhex yaala dadka reer waqooyiga ah somaliland dhulkii loo odhan jiray isticmaalkii ingiriisku haystay ilaahay ku abuuray
dhiig iyo dhaqanka iyo dhaqaalahaba wadaaga intoo laysu keeno oo la wada hadalsiiyo oo wixii ka dhaxeeya ay is-uur xaadhaan oo markaa ay ka heshiiyaan in ay markaa u diyaar garoobaan sifihii iyo hanaankii iyo habkii ay walaalahooda kale ee koonfureed ay markaa talyaanigu iyana gumaysanayey ay ku wada hadli lahaayeene isku urxaaran lahaayeene wixii dhacay ee foosha xumaayee faraha badnaayee kala dambeeyey layskaga qancin lahaa ee layskaga raalli gelin lahaa ee laysaga cudurdaari lahaa lagaga heshiin lahaa marka la gaadho in markaa laga wada hadlo maxaa inoo dana maxaynu wada yeelannaa sidaynu u wada yeelannaa wax ka duwan midnimadii labada dhinacba ku khasaareen ee ku hungoobeen ee 1960kii ay naga burburtay oo kale aanay u dhicin in midnimo nuxur leh shuruuda leh shuruuc leh macno leh tixraac hadhowto la raaca leh in ay markaa wada galaan oo qarannimadii iyo haybadii iyo milgihii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ee labadaa gobol ku nool oo ay ummadaha kale ee soomaalida ah ee maanta qaarkood wadamada madaxa bannaan yihiin qaarkoodna dalalka kale ka tirsan yihiin ay berri ka maalin hadday macno yeelato tani ay ku soo hiran karaan oo qaarkood u iman karaan oo la midoobi karaan oo halkaa markaa qowmiyadda soomaaliyeed wixii ay isu ahayd iyo walaaltinimadeedii iyo danaheedii iyo dhulalkii ka dhexeeyey iyo difaacashadooda ay markaa galaan oo halkaa mustaqbalka ay ka iman karto iftiin lagu soo wada hiran karo waa hagaag qodobkan waanu gabagabeynaynaa professor axmed ismaaciil samatar oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed gaar ahaana in badan hadda waqtisanadii u dambeeyey wax la waday nidaamka somalilan ahaana buddigihii buugga maanta lagu haga somalilan ama buugga kulmiye waxa uu dhowaan sanadkii hore horraantiisa sheegay laba arrimood inay la gudboon tahay somalilan ama ee fooda kusoo hayso waa mide somalilan oo guurguuranayso inay muqdisho tagto ama somalilan oo qurub u kala socoto in la arko fakarkaa ma la qabta adigu aad iyo aad si wacan baan professor axmed samatar ismaaciil aan ula qabaa oo axmed manifestada kulmiya ku howlgeliya buuggaana waa ka wada shaqaynaynay in badanna waanu isu keliyeysano wax badan waanu uga sheekaysanay somalilan waana ta maanta runtii dabada naga riixaysa ee muhiimka ah oo annagu ma doonayno somalilan habqana oo aan macno lahayn oo u kala socota reer ama koox ama fardi inay muqdisho isku shubaan muqdishona waa ku culays oo reer koonfureedku geed kasta in gubtaa hoostaale dad noocaas oo habqanahoo tale iyo qorshe lahayn oo u tagaa waa ku culays iyaga laftooda oo toodiibay la galgalanayaan oo la gelgelinayaan oo maanta ay doonayaan inay dambaska ka soo kacaan oo hay-adihii dowladeed ay u dhismayaan oo maamul gobolladii iyo iyaga khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe xal u raadinaya habqa noocaas oo talo iyo qorshe ku soconay iyaga ku dhado waa ku culays innagana waynagu somalilandna waa ku khasaare oo dhaqankii wixii dhacay wax ka xun baa dhici karaa ta kale ee labaadee aanu runtii aad in looga digtoonaado u baahan dowladda federaalkaana in lagala shaqeeyo u baahan waxa weeyaan inaan lagu hamiyin in somaliland la kala googooyo oo loo sameeyo maamul goboleedyo sida awdal state oo kale iyo maakhi state oo kale iyo maxay ahayto dhinacan kale ee s c oo kale iyo maamulo noocaasa hindise noocaasi khatarta uu yeelan karo iyada ku dheeda in laga feejignaado oo la ilaaliyo weeye annagu waxaan u taaganahay doonaynaa somaliland wada jirto oo unid ah oo laakiin wax ku heshiisa qorshe iyo tala leh habraac leh ku wada socota oo ay saldhig u tahay midnimo soomaaliyeed waa hagaag qodobkii u dambeeyey barnaamijkeena ayaan mudane maxamed ku sii siqaynaa waxaa jira wax loogu yeeray ama aan anigu oran karayo maxaa idinka lilaahi ah waxaan soo qaadanaynaa doraad waxaa baxay jamhad uu hogaaminayay generaal care oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeedna ay ku dhinteen generaal care iyo jamhaddiisii iyo gobolka sanaag wixii ka dhacay bulshada soomaaliyeed way ka dhalagsan tahay generaal care iyo jamhaddiisii oo soo gurya noqday ayaanu aragnay shalay waxaa baxay cusmaan abubakar dube oo adigo aad isku ardaad tihiin oo xisbiga kulmiyana aad ka wada tirsadeeneed
xisbina kaga dhawaaqay magaalada muqdisho oo ugu magac daray hilow maxaa adinku marka niyad jabkaasi iyo arrimahaasi iyo fircadka laga yimaado idinku maynan weli jirin qorshayaal aad kaga duwantihiin ama aad budhigidin ah oo aad qolyaha hore kaga duwantihiin horta caare arrintiisa xukuumadda somaliland baa ka gaabisay oo runtii xilligii ku habboonaa iyo sidii ku habboonayd aan ka yeelin ee mushkilad weyn may ahayn shaksi baxay buu ahaa ciidamada somaliland ka tirsan cadaalad darro tabtay aan mar raba somaliland diidanayne xukuumadda taa hawsheedii gabtay oo ka gaabisay goor xeeriya fadhaan kala dhaceenna hawshii soo afjirtoo khasaare dhacay haddii cismaan abakar dube oo aanu asxaab nahay oo aanu aqoon dheer oo in 20 sannadood ka badan ihi naga dhaxayso waa nin aqoon-yahana waa nin qoraaya waa nin hal abuur leh aragti ahaan ma kala fogin oo labada iyaduba midnimaanu raadinaynaa midnimo soomaaliyeed baanu raadinaynaa isaguna meel buu ka dayey oo dariiqii loo marayey meel buu uga muuqday annagana meel kaluu nooga muuqday annaga wuxuu nooga muuqday inaanu dadka xagga hoose ka shaqayno oo shacabka iyo maxay ahaytoy laamihiisa kala duwan aragti abuur u samayno midnimada ku saabsan oo doodo aanu curino oo aqoon-yahanku ka doodo oo siyaasiyiintu ka doodaan oo madax dhaqameedyadu ka doodaan oo ardayda jaamacadaha iyo macallimiinta jaamacaduhu ka doodaan oo ururada bulshada rayidkii ka doodaan oo culimadu ka doodo oo ninka shacabka caadigii ka doodaan midnimo iyo faa'iidadeeda iyo sida loo helayo iyo sida dadku isugu soo dhowaanayo hadday noqoto somaliland gudaheeda iyo hadday noqoto somaliland iyo soomaaliya ama waqooyi iyo koonfur annagu doorkayagu waa kaa waxaana lagu aaminayaa wixii aanu annagu nalaga arko ficilkayaga ah maxay ahaytoy dhaqdhaqaaqayaga ah hadalkayaga ah habdhaqankayaga ah waxaanu jecelahay in dib loo raaco sooyaalkayaga qof ahaaneed iyo koox ahaaneedba gelinba halkaanu soo joognay kuwa maanu nahay maxaana lagu yaqaanay maxaa horteedna lagu bartay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin ku hakasho iyo iyo maxay ahaytoy daraasayn bay u baahan tahay annagu xilal u carari mayno annagu xamar xil ka dooni mayno annagu xamar maal ka dooni mayno oo ma nihin calooshood u shaqaystayaal la kiraystay ama lagu adeegsado oo loo adeegsado burburinta dadkooda iyo dalkooda annagu somaliland riston cidina noogama lexla jeclo badna somaliland kuwa haystaanu uga lexla jeclo badan nahay kuwa badan oo joogo oo durbaanka tumayaanu oo qaylinayaanu uga lexla jeclo badan nahay tan iyo maalintaanu dab ka baynay wanaag iyo isku soo dhoweyn iyo dad sicaysiin iyo nafa isdiidan isku soo durgintoodaanu ka shaqaynaynin oo wakhtigaya siinay oo nafta u huray oo aanu u baxnay oo aanu halis u maray oo aanu u gaajoonnay oo aanu u soo haraadno aanu u dib jiray tii uun baanuna maantana wadnaa maalintaanu snm ku biiray anigoo aan 19 jir ah oo aan 20 gaarin wanaag soomaaliyeed baan ka shaqaynay aan kaa dhexgalo mudane maxamed isla arrintaa bixitaanka ah waxaa jira suldaan abubakar cilmi wabar oo reer awadal ah oo dhowr sano iminka ka maqan baladiisii suldaan abubakar cilmi wabar waxa uu u gogol fariistay nidaamka somaliland ka jira uu hogaaminayay iminka mudane muuse biixi ka horna uu hogaaminayay mudane siilaanyo in wax laga qabto cadaalad darrada iyo eexda iyo qaraabakiilka somaliland ka jira suldaanku ilaa iminka waa uu ka maqanya baladiisii waxaanu suldaan u yahay dad mahigaan oo aad u tiro badan qorshaha ma idinkugu jirtaa arrimaha noocaas ah inaad garwadeen ka noqotaan si aad oola hadli lahaydeen suldaankaa maqan walaalow qof kasta oo reer somaliland oo reer waqooyiya waxaan albaabkayagu wuu u furan yahay afkayagu wuu u furan yahay raadintiisu waa nagu waajib inaanu la sheekaysano aragno cadaalad darrada uu ka cabanayaa wabar waa mid jirta waa midaynu ognahay waa midaan isaga iyo reerkooda iyo gobolkooda ku koobnay ee somaliland oo dhan haysta bari haysta laascaanood bay ka jirtaa buuhood bay ka jirtaa ceerigaa bay ka jirtaa burcay ka jirtaa berberay ka jirtaa hargeysay ka jirtaa gabilay bay ka jirtaa dilay ka jirtaa
boormay ka jirtaa lawya cadda iyo sayr bay ka jirtaa waxa weeye si kasta ha loo kala badsadee waa cadaalad darro caama sumad iyo sawrac gaara ma kala lahaa coldoon oo kale oo muwaadin somaliland sharci darru iskaga xidhan yahay hargeysa oo xabsiga loo daayaa mar kasta oo madaxweynuhu cid saamaxana waa laga tagaa oo halkaasuu ku xidhan yahay haddii abahay mayo dad badan oo wabar oo kale abaa maanta waddankii ka maqan oo cadaalad darro kaga maqan oo gelila oo haddii la tago la xidhayaa maantidaa qoyan waxaa la mayd maxaa u dambeeyey iyo kaa la sii sido talaadiin baa ka hadashay maalin dhaweyto waddanka gudihiisa uu ka mid yahay sudaankii guud ee beelaha somaliland uu ka mid yahay sudaankii guud ee sudaankii musabixii laftiisu oo uu ka mid yahay boqor buur madow uu ka mid yahay cadda gude oo isna suldaanihii maxay ahayd toy maanta waxaa loogu hanjabayaa oo wasaaradda arrimaha dibadda ee somaliland ay ugu hanjabaysaa in tallaabo laga qaadayo iyagoo waddankoodii jooga iyagoo dadka wakiilada ka ahaayeen ay meesha joogaan iyagoo oo aan dembi gelin iyagoo aragti soo jeediyey ay xaq u leeyihiin oo waajib ka saaran yahay oo ah in labada dhinac ee soomaaliya iyo somaliland wada hadlaan in midnimadu shay wacan oo qiimalo tahay hadday tahay somaliland gudaheeda iyo hadday tahay somaliland iyo soomaaliya arrimaha wanaagsan iyagoo ka hadlo ra'yigooda cabiray ayaa maanta loo handadayaa oo wasaaradda arrimuhu u handadaysaa nin ka tirsan oo wasiir ku-xigeenka ahi hadal uu maanta sii daayey oo uu leeyahay tallaabaanu ka qaadaynaa sharciga waafaqsan marka cadaalad darradu sida aynu moodayno wax qof iyo gobol iyo reer u haleelay maahe waa wax caama oo nidaamka meesha ka jira ama silaanya ha haysto ama muuse ha haysto ama mid ka horeeyey ha hayste run ahaantii wax soo jiitamayo mar walba hay-adaheena dowladnimo iyo shuruucda aynu ku dhaqannaa waxay ahaayeen kuwo aan adkayn kuwo lagu awrkacsado kuwo lagu danaysto kuwo la jiifiyaaba bannaana marka waxaasoo dhami waxay u baahan annagu waxaanu diyaar u nahay waanu u taagannahay haddaanu nahay mar kale midnimo haanigun bay ka tolan tahay inaanu horta waqooyiga dadka ku wada nool ilaahay ku wada uumay xididka iyo xigaalka iyo xumraha isku yaaliyaala dhaqan iyo dhaqaalaba ka dhexeeyo aanu heshiisiino ay is urxaadhaan wixii tabasho ahay jira layska bogsiiyo deetana qorshe iyo nidaam walaalaha iyaga reer koonfureed ee aanu iyagaba nahay xididka iyo xigaalka iyo xumraha isku yaaliyaala dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo dhulkuba naga dhexeeyo inaanu iyana markaa sidaas si lamida ula hadalno markaanu anagu xoog iyagu helo oo aanu midnimo soomaaliyeed oo waxtar leh oo loo meerdayayo sidaan horeba usoo sheegay macnayaasha midnimo looga baahanyo dhan buuxinaysa iyo shugudaheeda laysla hor fadhiisto laga wada hadlo inta ka horeysana walaalaha iyaga koonfureed iyaga laftarkoodu ay hawshaa dhinacooda kasoo wadaan oo xaggooda kasoo ababiyaan oo iyaga ku dhawdo dee midnimadu iyo waxtarkeeda iyo fahamkeedu waxyaaba badan oo qaldan baa jira oo xaggaaba ka jira oo u baahan in iyaga ku dhawdo ay u dayma yeeshaan wuxuu dhinac qura maaha midnimo dhinac qurihii ama jacayl dhinac qura ka socda qiimo ma leh macnana ma sameeyo waa hagaag geesi lama gaagixiyo mudane maxamed baashi sheekh xasan gebagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay qodobka ugu dambeeya ama su-aasha ugu dambeysa waxay tahay dhalinyaro mahigaan ka badan oo aada u tiro badan oo ku kacaamay nidaamka somalilan ayaa jira dhalinyaradaasi inta badan ma maqli karayaan midnimo dhagahoogana ma maqli karaan indhahoogana ma arki karaan maxaa dhalinyaradaasi aad kula talinaysaa ama aad u soo jeedinaysaa iyo haldoorka kale ee iyaga laftooda la arrinka ah dhalinyartaasi kusoo dhawow walaal arrintan mar kale midnimo waxaanu ku dhawaaqnay 7 bishii imika dhamaatay March falcelinta ka soo baxday oo aanu dhawaan ka soo saari doono daraasad cilmiyeysan oo laga sameeyey ayaa arrimo badan ka jawaabi doonta dhalinyaradu waxa weeye mustaqbalkii ummadda annagu maanta waxaanu nahay dhinacii kale ee cadceeddu u dhacaysay baanu usii soconnaa waajibkana saarani waxa weeyaan inaanu dhalinyarada laangooye u samayno si mustaqbalkooda markaa iyagu ay halkaa uga sii ambaqaadaan oo waddada qardajeexa ee maanta cagta lagu hayo ay ka baydhaan dhalinyaro badan oo waxbaratay oo waddanka joogtaa runtii mar kale midnimo waxay u arkaan iftiin u soo baxay oo mustaqbalkooda macno badan u samaynaya waayo dhalinyarada waxaa haystay rajo la-aan fara badan shaqo la-aan fara badan cadaalad darrada faraha badan aynu ka sheegaynay waddankoodii bay joogaan waddankoodii bay maanta ninka 30 jirka ee maanta hargeysa ama burco ama buurame ama laascaanood ama ceerigaaba jooga
mustaqbal madow buu inta badan arkayaa way jiraan dhinaca kalena in iyagu dhallinyarada ka mid ah oo qaabkii loo habeeyey maskaxdooda ee loo qaabeeyey weli ku socda oo gooni isutaagga somaliland uu yahay muqadas oo jiritaankeedu uu yahay lama taabtaan qolyaha talada u baahani qoladan iminka ku baraarugtay qiimaha midnimadu leedahay iyo in mustaqbalkoodii iyo fursadahoodii ku jiraan haddii si wacan looga shaqeeyo iyaga waxaa la gudboon inay si taxadir iyo qunyar socodnimo iyo dhowrsani leh arrintan uga fekeraan oo dhexdooda uga doodaan oo marka ay fahamkeeda yeeshaan fidiyaan fekerka oo ummadda kale la wadaagaan si ay shacbiyad u helaan kuwa weli ku qafilan ee leyrku kaga baktiyey ee hoonku ka haysto gooni isutaagga somaliland waa muqadasna waxaa la gudboon inay doodahan ka qayb qaataan oo aanay noqonin inay caytamaan ama aflagaadoodaan ama waxaanay hubin oo aanay caddayn karin maantaba waktigu kalumay ku meeraystaan sidii luubaanka waxaa looga baahan yahay inay maskaxda furaan doodaha ka qayb qaataan isku dayaan inay nagu qanciyaan ama nagu qancin karaan ama dadka aaminsan mar kale midnimo ku qancin karaan in gooni isutaagga firsada ku jiraan hala isqanciyo laakiin dood baa walaa lagu gudbaa markaad dood keento dood baa lagu gudbaa fikir markaad keentana waxaa lagu beegaa fikir kale qoladaa iyagu ay ka dhigtay gooni isutaaggu waa muqadas wax muqadas ma jiraan oo gooni isutaag la yidhaahdaa ama midnimo la yidhaahdaa midnimaduna muqadas ma noqoto oo hadday muqadas tahay tii lixdankii lagamay burburteen gooni isutaagguna muqadas maaha oo hadduu muqadas yahay sidan uma u fool xumaadeen oo maanta maxay haytay wadda eri go-an ah oo agaraadama oo waaqlaha cagta ma saareen oo lagama rajo go-een dadkii maxay haytoy reer somaliland maanta intooda badan jahawareer iyo meelay u dhaqaaqaan iyo mustaqbalkooda iyo noloshoodu shaki badan baa kacay shaki badan shakigaasi looga baxo iftiinka ha loo soo baxo ha laga doodo ha la wada hadlo nimanka talada midida daabka haystee hargeysa joogaa iyaga qudhoodu tan baa ugu jirtaa waayo meel alla meelay ummadii u dhaqaajiyaan oo kale ma hayaan ictiraaf ma jiro inaanu suuragal ahayn baa muuqday khataro badan oo ka sokeeya baa soo baxay oo kuwan geeska afrika ka ilma roganaya waddanka ethoobia ee aynu jiraanka nahay ee xuduudda ugu dheer somaliland iyo soomaaliya la leh waxaa ku nool 115 milyan oo qof oo kala qowmiyada oo kala afa oo inaga aqoon badan oo kala diimaa oo inaga aqoon badan oo inaga dawlad jecel oo inaga dhaqaale badan ayaa afka inagu soo haya oo haddii isbeddelka aan laga faa'iideysan khasaare iyo halis inooga iman karto baddeena weyn baddeyna dheer 3,000 iyo 3,300 iyo 330 kilomitir ee dheeraan ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa badweynta hindiya ayay ka xidhan yihiin dhaqaalahooda kobcayaa u baahan inuu badaha waxna kala soo dego waxna ka dhoofsado inagana fursado waaweyn baa inoogu jira haddii la waayo dawlad la isku hadlayn karo sharci ku dhaqanto oo xeebaha maamusha oo midaysan oo macno leh waxaa suurtagal ah in si kale looga faa'iidaysan karo maxay haytoy khayraadkeena iyo waxa baddaas iyo ku gudban beesha caalamka maanta ka shaqaynaysa midnimada wada hadalka iyo midnimada iyo isku soo dhaweynta soomaalida gobollada waqooyi iyo koonfuri danihii ay ka lahaayeen gobolka geeska afrika gaar ahaan soomaaliya iyo danihii soomaalida isku soo dhowaanaya oo midoobaya marka inaan taa la moogaane laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay oo aynu waxyaalaha fursadaha waaweyn ee dhaqaale ee siyaasadeed ee difaac ee haybadeed ee qarannimo ee ummadnimo inaynan maanta dayicin baa loo baahan yaho siday yihiin aynu u rimino oo uga faa'iidaysan aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane kaasi wuxuu ahaa mudane maxamed baashe sheekh xasan oo ah qoraa soomaaliyeed inta badana ka faalloosan aan u sheegnay arrimaha dhaqanka iyo caadooyinka iyo dagalka soomaaliyeed ama iraahda taariikhda iyo sooyaalka intaba mudane waxaan kaaga madax celinaa dana airo t v sida qiimaha leh aad uga ajiibtay inaan qayb ka noqoto barnaamijka maanta aynu ka tabinayno halkan aad baana kuu salaamayaa aad baad u mahadsan tahay faysal afroone annaguna ka qof ahaan iyo ka dhaqdhaqaaq ahaanba adiga iyo t v-gaba aad iyo aad ayaanu kugu mahadnaqaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحنا كسوف مرينا برنامج كقاد كها إنه ما قدرنا أما إنه كقاد لنا
waa maxay mar kale iyo midnimo bartina uu noogu ahaa maxamed baashe sheekh xasan oo ka ah xiriiriyaha barnaamijkaasi la baxay mar kale iyo midnimo waxaan idin qaaday dhigaya barnaamij anigoo ah suxufi abrone wixii talo iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan airo@gmail.com waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu